kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa udub Soomaali TV qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona daawadayaal dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markan bilowday abaabul aad u xoogan oo ka dhana maamulka Axmed Madoobe oo cadaadis xoogan kala kulmaya dowladaha Imaaraadka iyo Kenya maxaa lagu cadaadinayaa waxaan kale warkeena ku soo qaadan doonaa halkeeba ku dambeeyay dibadbaxii kooxda madasha samata bixinta dagaalada ka soconaya Owdal iyo xiisada siyaasadeed ee Puntland iyo sidoo kale waqooyi bari Soomaaliya u dhaxaysa ayaan daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa daawade haddii aad janaalkeena udub Soomaali TV ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka like iyo share iyo comment waa dhankaaga aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda waxay rabtaa inay ka dhabayso yoolkeeda ugu weyn ee ku aadan sidii ay kaga guuleysan lahayd Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha Jubbaland saacadihii la soo dhaafay hogaamiyaha Jubbaland ayaa waxa uu la kulmay culays aad u xoogan oo dowladda dhankeeda kaga imaanaya waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay wadaa in ay talaabo adag ay qaado talaabooyinkaasi ayaa dhamaantoodba waxay yihiin kuwa si weyn looga guuleysanaya shakhsiyaadka dowladda federaalka Soomaaliya hanaan siyaasadeedkeeda ka soo horjeeda saacadihii la soo dhaafay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay waday olole aad u xoogan oo ka dhanah ciidamada maamulka Jubbaland waxaana ciidamada maamulka Jubbaland hadda ay la kulmayaan qorshayaal waaweyn oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u dhigayso dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u weecatay dhanka iyo gobolka Gado iyadoona ay dhisayso maamul cusub oo Jubbaland la yiraahdo maamulkan cusub ayaa u muuqanaya mid lagu dhibarjibinayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar degdeg siiyay wasiir Fartaaj ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre Cabdirashiid Jalan iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Mariixaan waxaana beesha Mariixaan hadda ay wadaa qabanqaabadii ugu dambeysay oo ay ku sameynayso maamul cusub maamulkaas cusubna uu taageersan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh ayaa yoolkiisa ugu weyn waxa uu yahay in talaabo adag uu qaado isla markaana talaabadaasi ay noqonayso mid guul weyn looga gaarayo shakhsiyaadka mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haba ugu horeeya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxaa hadda uu la kulmayaa culayskii ugu dambeeyay waxaana dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay si weyn ugu dadaalaysaa in ay go'aan lama filaan ah ay qaadato go'aankaasina nabar weyn ayuu ku noqon doonaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dowladda federaalka Soomaaliya ayaa balanbiidan cusub ay sameysanayso waxa uu muuqanaya in ay go'aan adag ay ku qaadan doonto dowladda federaalka Soomaaliya ayaana go'aansatay bilaabida dhismaha maamul cusub oo Jubbaland ah oo xaruntiisu ay tahay magaalada Garbaharey kadib markii ay fashilmeen wadahadaladii magaalada Kismaayo ee u dhaxeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kulamo isdaba joog ah ayaa shalay galab ilaa xalay ka dhacay filla Soomaaliya ayaana lagu go'aamiyay in lagu dhaqangeliyo qorshaha labaad ee dowladda ee Plan B kaas oo dhismaha maamulka Jubbaland cusub ah waxaana tani u muuqanaysaa in dowladda Soomaaliya ay dadaal xoogan ay ku bixinayso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulanka ka sheegay arinta Jubbaland ay hadda in si rasmi ah ugu taalo xukuumadda isagoona tilmaamay inuu yahay oday una halkaasi talada dhabta ah lagu wareejiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre warar lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay gelinkii dambe ay yeesheen shir socday saacado badan kaasi oo looga arrinsanayay sida loo bilaabi lahaa dhismaha maamul cusub madaxweynaha ayaa xildhibaanada iyo sidoo kale wasiirada joogay u sheegay wadahadaladii Kismaayo aysan natiijo keenin isla markaana aan la aqbali karin in Jubbaland lagu sii hogaamiyo qaab ka baxsan dastuurka federaalka Soomaaliya isla xalay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa isna shir kale u qabtay xubno badan oo ka soo jeeda Jubbaland si looga shaqeeyo farsamada iyo sidoo kale qaab dhismeedka maamulka cusub ee lagu wado in xaruntiisa ay noqoto Garbaharey talaabadan ayaa imaanaysa kadib wadahadaladii Kismaayo ay fashilka ku soo dhamaadeen waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud yoolkiisa ugu weyn uu yahay inuu guuleysto isla markaana uu ka guuleysto Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland
madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa tallaabada ugu xoogan uu doonaya waxa ay tahay in uu ka falceliyo go'aan kasta ay soo saarto dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laakiin dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyana yool weyn leh yoolkeeda ugu weyn waxa uu yahay inay ka guulgaarto Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dhinaca kale dowladaha Kenya iyo Imaaraadka Carabta ayaa cadaadis xoogan waxa ay saarayaan madaxweynaha maamulka Jubbaland iyagoo ku cadaadinaya in uu sida ugu dhaqsiyaha badan wada hadalka ugu laabto haddii ugu laaban waayana cawaaqib xumo adag uu la kulmi doono madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa la sheegay inuu kulamo kala duwan ay la qaateen saraakiil fara badan oo ka socdo wadamada Kenya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta iyagoona u sheegeen in uu wax waliba sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku bedelo haddii uu mowqifkiisa uu ka laaban waayana wax waliba oo dhashay isaga sababteeda uu yeelanayo madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa cabsi xoogan soo wajahday waxaana uu ka cabsi qabaa in uu culays xoogan uu kala kulmo madaxda maadaama madaxdu ay maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen culaysyo aad u xoogan ay saarayaan hoggaanka sare ee maamulka Jubbaland sidoo kale Ethiopia ayaa waxa la sheegay in iyada nafsad ahaanteeda ay wado abaabul xoogan iyo qorshayaal cusub oo ay ku doonayso inay fariisimo cusub ay kaga qabsato ciidanka Jubbaland dowladda Ethiopia ayaa hadda waxa la tilmaamayaa inay taageero badan ay siinayso dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana socdo qorshayaal waaweyn oo mar kale isbedel ku imaan kara xaaladda siyaasadeed ayaa maalinta ka dambaysa waxay noqonaysaa mid aad u sii kordhaysa dhibaatana ay ku noqonaysa Axmed Madoobe qaabka ay wax ay ku soconayaan dhinaca kale daawadayaal qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha deegaanada maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyay kulamo isdaba joog ah lahaa waxayna ay ka arisanayeen go'aamadii iyo talaabooyinkii ay qaadeen maamulada Puntland iyo Somaliland waxaana si weyn ay u sheegeen inaysan marnaba raali ka ahayn in maamulkooda waqooyi bari Soomaaliya la colaadiyo isla markaana cid kasta oo colaad ku sameyn karto ay ka hortagi doonaan beelahan ayaa dhammaantoodba waxay tilmaameen in yoolkooda ugu weyn uu yahay inay guul gaaraan isla markaana ay ka hortagaan cid kasta oo dhibaateyn karto carqaladeyn kartana xaaladooda guud ahaan tanna waxay u muuqanaysaa xiisadda siyaasadeed ee waqooyi bari inay cirka isku sii shareerayso maalinta ka dambayso wararka sidoo kale waxay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay ay hadda ceergaabe ay ka jirto xaalad aad u adag ceergaabo oo gobolka Sanaag dhacdo ayaa waxa la sheegay in ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan maamulka waqooyi bari Soomaaliya maamulka waqooyi bari ayaana yoolkooda ugu weyn uu yahay inay tallaabo adag ay qaadaan talaabadan ayaa waxay noqon doontaa mid hadalhayn badan dhalin doonto waxaana dadka falanqeeyay siyaasadda Soomaaliya ay sheegeen in maamulka Somaliland yoolkooda ugu weyn uu yahay inay ka guulgaaraan maamulka la yiraahdo waqooyi bari Soomaaliya laakiin ciidamada maamulada Puntland iyo sidoo kale Somaliland ayaa iyagana yoolkooda ugu weyn waxa uu yahay in gebi ahaanba ay burburiyaan maamulkani waqooyi bari Soomaaliya la yiraahdo dhinaca kalena oodal wali waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan saacadda ka dambaysa dagaalka ayaa xoogeysanaya iyadoo beesha Samaroon saacadii la soo dhaafay ay kulamo isdaba joog ah yeelanayeen kulamadaas ayayna kaga hadlayeen xaaladaha kala duwan ee jira iyo talaabooyinka ay qaadi karaan iyo sida ay wax ay ku bedeli karaan beeshan ayaa yoolkeedu ugu weyn uu yahay in ay gebi ahaanba ay ka baxdo maamulka Somaliland jabhadana ay go'aankeedu uu yahay inay maamul cusub ay samaysato maamulkan ayaa ka madax banaanaan doona maamulka Cabdiraxmaan Cirro waxaana Cabdiraxmaan Cirro wali uu cadaadis u saaray qaar badan oo kamid ah odayaasha dhaqanka saacadihii la soo dhaafay waxa xabsi la dhigay saacadihii la soo dhaafay waxa xabsi la dhigay dhalinyaro aad u fara badan oo ka soo jeeda beesha Samaroon waxaana dhalinyaradan loo sheegay in ay waajib ay ku tahay inay taageeraan maamulka Somaliland guud ahaan daawadayaal warkii aad ka daawanayseen janaalkeena Udub Somali TV saaxiibayaal waana inta daawaday haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka like iyo share iyo comment waa dhankiina waa mahadsantihiin amaana Allah